muuqaalkeena maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa 10 qodob oo aad ku horumarin karto shakhsiyadaada. Waa muhiim inay noqoto shakhsiyadaada shakhsiyad fiican. 1. habdhaqankaaga hagaaji. Waa inuu habdhaqankaaga noqdaa mid wanaagsan bulshaduna ay aad u soo jiidato. 2. hadalkaaga wanaaji. Waa inaad hadal wanaagsan kula hadashaa qof walba oo aad la tacaamulayso. hadalku wanaagsan waa sadaqa. 3. xumaha raaci wanaag. Waa macquul qof walba oo bini aadana waxa ka dhac xumo ama khaladkaaga ama xumahaaga waa inaad raacisaa wanaag. 4. samirka wehesho weligaaga naqo mid samirku uu wehel u yahay. 5. baryada alla badi. mar walba oo dhib ay ku qabsato ama dhibaato aad dareento waa inaad xagga Allah u naqataa aadna gacmaha u taagataa. 6. salaada waqtigeeda ilaali. salaada oo waqtigeeda la ilaaliyo waxa ku jira fadli aad u badan. 7. sadaqada cimrigay barakaysaa hadayalsan. sadaqada oo aad baxsato mar walba waxay ku kordhinaysaa ama dheeraynaysaa cimrigaaga. 8. hiigsigaaga sare u qaad. hiigsigaaga iyo hamiga nolosha aad ka leedahay waa inuu noqdaa mid aad u sareeya. 9. waqtigaaga macno u yeel. waqtiga waa inuu kugu fadhiyaa macno. waqti walba iyo daqiiqad walba ka baxaysa waa inaad ku xisaabtantaa. 10. dadka isku mid u wada wanaaji. qof walba oo aad la tacaamulaysa ha noqdo mid sareeya iyo mid hooseeya iyo mid dhexdhexaadaba waa inaad si isku mid u wada wanaajisaa dhammaan.